xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo horay magaalada Kismaayo uga dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee Jubbaland oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah. ugu horeyn xidig waxa uu si cad u sheegay inuu san aqbali doonin jadwalka maanta uu guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ku shaaciyay mudaynta diiwaangelinta musharaxiinta iyo shuruudaha looga baahan yahay. habraaca iyo schedule-ka doorasho ee maanta la yidhi waa la soo saaray annaga xagganaga waxba kama jiraan waa null and void ma aqbalayno ma aqoonsanin mana aqbali doono waxaan rabaa inaan idiin sheego hawshaasi inaydan khalkhal gelinin inaydaan waqti gelinin isla mar ahaantaana haddii qof uu siduu rabo iska samaysanayo Soomaaliya iyo Afrika iyo adduunka horaan u sheegay inuu qof waliba wuxuu rabo samaysan lahaa anigu marran madaxweyne noqon lahaa aad baa u mahadsantihiin arrinta kale horaynu uga wada hadalnay odayaasha dhaqanku beelahooda ha u soo xulan xildhibaanadii halkii kursi hal qof ha loo soo xulo beeshii 3 mid gabadh ha ka soo dhigto beeshii 5 laba gabdhaha ka soo dhigto beeshii ka badanna qorshaha sidaa ha u isticmaalaan odayaashuna ha noqdaan odayaasha rasmiga kana ay diidan kana iga tuuro mid baadiye iga keen waxaasi ma shaqaynayaan waxaa la rabaa doorashada Jubbaland ka dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay doorasho lagu wada kalsoon yahay doorasho dadku ka wada qayb qaato doorasho qof waliba uu ku qanci karo isla mar ahaantaana natiijada soo baxdaa ay tahay natiijo la wada aqbalo waxaa lagama maarmaana in qof waliba ogaado inaanay jirin Soomaaliya iyo adduunka guud ahaan meelnaba in qof sida uu rabo uu yeeli karo ama kooxi sida ay rabto ay yeeli karto marna taa ma suurageli doono. sidoo kale xildhibaanku waxa uu sheegay in haddii sidan ay wax u sii socdaan ay Kismaayo ka dhici doonto laba doorasho oo keeni karta in maamulku yeesho laba madaxweyne iyo laba baarlamaan sida uu hadalka u dhigay. waxaan rabaa dhammaantiin inaad wada ogaataan baarlamaanka Jubbaland xulitaankiisa odayaasha iskale haddaan murashaxiinta nahay waa ogolahay in odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada waa ogolahay in xildhibaanadu wax doortaan laakiin qof inuu wax soo qorto kulligeen ma yeelina sidaas oo ma waxaan soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka murashaxiinta isbedel doonka meel kastoo ay joogaan haddii doorashadu sida ay ku socoto haddii sida la rabo ee shaarka halkan lagu cabiray lagu sii jiro inay doorashooyin kala duwan ka dhici doonaan Kismaayo haddii la yiraahdo waxaa dhismi doona baarlamaano kala duwan waxaa ka soo bixi doona madaxweyneyaal kala duwan waxaa ka soo bixi doona bulsho maamulo kala duwan leh. Bashir Maxamed Daahir Goobjoog Kismaayo.